hadda daaroodka hadda jooga axmed madoobe oo kolba meel ku dhacdhacayo kolna Kenya la xirmaaya kolna hadii alla ku sama ogol yahay meel uu la xirmaaya an hadda anaka aqoon loo wareersan nin wareeray ah daniyow dawladda ha ka reebin dadka ha ku dhimin door dawlad la'aan waa balaayo waa dhib dawlad la'aan waa balaayo waa dhibaato dadka ha ku dhumin ha dhumin dadka ha dhumin soo raaci dadka daniyow dawladda soo raaci hadii ma jeerteenow hadii dani idin diiday adinku mageedaad ku xirxirantiin soo ruug cadaan ma lihidin soo ugaas ma lihidin soo aqoonyahan ma lihidin soo ururo wax garta ma lihidin ha ka harina bismillaahi raxmaani raxiim waa hadlahayaa anigu maanta waxaan joogaa gobolka Gedo Garbaharey baan ka hadlahayaa Garbaharey hawlaha naga hadlayana waa hawlo badan hawlahaas waxay yihiin horta kow marka hore Axmed baan ka hadlahayaa Axmed nin daarood Ismaaciil weeyi annaku waa dhaqaalayna waana dhowrna waana ka xishoonna intuu maray oo nala marayna ma aanan marin markii lagasto dawladii soo jabtay oo la isugu yimid Kismaayo oo annaku aan degmo ahaan u leenahay wuxuu qabaa 150 qof buu qabaa qof wali u sheegtayna lama arko hase ahaatee maamaa waxaa jirta waa qaan mareexano waa qaxa kugu maqan adiga qabiilkaba u qoolmi doono inuu ku fakan doono 14 degmo weeye Jubbaland 14 degmo afmadow buu ku leeyahay asagu annano 9 baan ku 8 baan ku leenahay waa inta kale Soomaali Ilaahay baa degan asaga oo saas tahay annako madaxweynaha iyo wasiirkiiba leh iyo hadii alla ku samogol yahay labadiba asaga gacantiisa galeen kama aanan daba jabeeqin kama aanan daba laalaadin waa iska dayna waa ka aamusna daarood ahaanna waa u Soomaali waa uga xishoonna Soomaali ahaanna waa uga xishoonna minaka xishoodka annako aan xishoonnay asagu marka nagama xishoonin nagamana leeleexanin mar alla markii madaxweynaha noo noqday yu cagtana saar wuxuu dilo iyo wuxuu daqro iyo wuxuu cayriyo naga dhiga iyo wuxuu haleeyo hadda wuxuu nala aada Buntland buu nala aada hadda Buntland buu saaxiib hadda noogala soo xirta waxaan idin sheegaynaa dadka Soomaaliyeed oo hadii alla ku samay Gedo ku haya oo Gedo Axmed Madoobe anaalada uu ku hayo dadka Soomaaliyeed oo Gedo Axmed Madoobe male annaka u dhiibnay annakuna markaan ka weynay tolnimo iyo ehelnimo markaan ka weynay oo qof uu dilo iyo qof hadii alla ku samay ogol yahay dhumiye aad ka dhigay oo Kenya nala galay aslankeedu Kenya nala galay yaan ka leexana waa ka leexana hadii loo qaba inaan kun sharmaaka inuu celin karo farmaajo waa taleeyay farmaajo Garbaharey ma celin karo asagu nagu Axmed Madoobe nama raacin karo nagumana dari karo saas oo tahay annakoo dhaqaalaynayna oo la soconna yaa waxa la yiri waxa tidaahan Ilaahay baan ku dhaashay ragiina reer magaalka oo Soomaaliyeed cid walba hawiye iyo daaroodba waxa tidaahan Axmed Madoobe waliga Garbaharey ma tagta dhaha Ilaahay baan hadda idin ku dhaashay Garbaharey ma tagta dhaha oo ma aragta dhaha waliga Garbaharey ma istaagtay Axmed Madoobe la sheegayo Gedo ku andacoonay ma hayna annaku meel alla meel u harsaday iyo meel ka istaagay lama arko 8 degmana waxa ka taliya oo leh oo hadii alla ku soo deegaan ay u taa maraan asna 14 afmadow buu ku leeyahay afmadow balbaara halkaas afmadow buu ku leeyahay halkaas ku leeyahay Axmed Madoobe annaka dib noogu soo noqon ma hadii farmaajo yira farmaajo asaga Gedo ma yaqaan farmaajo laftiisa aan Gedo aqoon oo noogu imaanin marka dad la dhiibi kara manhiin waa aamusanaha Gedo wax ka hadla lama waayin aqoonyahan baa jooga gabdha afcod eerayaalaha jooga odayaal ruug cadaaha jooga hadii alla ku sam ogol yahay gumaratooriyaal baa jooga xildhibaanaa jooga qof hadla Gedo lagama arko intaas waxa lagu hadlayaan dhageysanaynaa intaas waxa la sheegayaan dhageysanaynaa wala baxa annakuna hadii alla ku sam ogol yahay kama aanan daba laalaadin oo waa iska dayna Axmed Madoobe hadalkanaga hadaayo hadii alla ku hawraartanaga hadaayo magacanaga hadaayo banaanka dhaay Axmed Madoobe naga maro caay mayno aflagaadayn mayno wax ka sheegi mayno Axmed Madoobe no dambo annaku leenayaan ka maqlin farmaajo lagu wareegayo farmaajo Gedo yaa laga shileeyaa farmaajo annaka namad dajin meeshan farmaajo ruuxiisana ma naqaano waa qaranka Soomaaliyeed waa madaxweyne
ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u yahay annakuna ummaddu madaxweyne u yahay yaan ka midnaha kama duwanin intu madaxweynaha u yahay annaka u yahay annakana madaxweyne noo yahay asna madaxweyne garawana ma hoostagayso haddaan meel hoostagayno xamar baan hoostagaynaa xamar baa Soomaali deganta dad sharaf leh oo haddii alla kuu sama ogol yahay dhaqanka Soomaalida yaqaan waa hawiye qayb baaba naga oo annaka asaga bar saddex markii noo dhiga laba asaga dhalay ayakaan hoostagaynaa caawa farmaajo hadduu madaxnimada ka tago oo ama uu ku soo noqon waayo ama ka tago waxaan hoostagaynaa xamar iyo hawiye hoostagaynaa cid kale ma rabno cid kale ma aadayno annaku haddii alla kuu sama ogol yahay afmadow ma hoostagayno annaku afmadow hoostaga haddaan leedihiin afmadow ma hoostagayno umana soconno hadalkanagana waxaa loo waaya waa wada hadli karnaa wada aqoonyahan wada codeeraha nagu jire waxaan suuragelayn in lagu hadla ayaan maqalna Axmed Madow intaas kaga baxa hana daayo Axmed Madow hana daayo afmadow ma hoostagayna annaku Axmed Madow hana daayo magaca Jubbaland la yiraahdo annaka iskale waa webigaan haddii lagu Jubbaland waxaan u jeedaa marka anigu waxaan rabaa dawladda dhismaheeda dani waxaan leeyahay daniyow nin daarood Ismaaciil haata adaan hadda daaroodka hadda jooga Axmed Madow oo kolba meel ku dhacdhacayo kolna Kenya la xirmaaya kolna haddii alla kuu sama ogol yahay meel uu la xirmaaya aan hadda annaka aqoon loo wareersan nin wareeray ah daniyow dawladda ha ka reebin dadka ha ku dhimin door dawlad la'aan waa balaayo waa dhib dawlad la'aan waa balaayo waa dhibaato dadka ha ku dhumin dadka dhumin soo raaci dadka daniyow dawladda soo raaci haddii majeerteenow haddii dani idin diiday adinku mageedaad ku xirxirantihiin soo ruug cadaan ma lihidin soo ugaas ma lihidin soo aqoonyahan ma lihidin soo uura waxgarta ma lihidin ha ka harina dawlad la'aan dawlad waxaan dawlad xun dawlad la'aan baa ka fiicanta ha harina waxaan leeyahay hormuudkiini ku socda hormuud baad ahaan jirteeni ku socda annaku waa idin rabnaa idinkama maarno inaad Soomaali ka hartaana ma rabno mana doonayno soo raaca Soomaali rag iyo naagab warkayga waad maqlaysaan caaw waad dhageysanaysaan Soomaali soo raaca ha ka harina Soomaali dani yugaad in ku xiran war annaka ba haddaan maanta nin geed nagu xiran hayo ninkii geed nagu xirta kama ogolin nin geed nagu xiran maayo hal nin geed sama jeerteen oo qani ah oo oday walba soo ugu xiran kara war ka soo baxa qalowgu aad ku jirtaan qalowku iyo dadka duurka ka soo bixi annaku maanta oday geed nagu ma xiran karo mareexaan baana waa la yaqaanaa inuu sanadii alla kuu sama ogol yahay meel cidlaha ku xirmaynin meeshii danta ugu jirta waa galaa maanta adinku kursiga waxaa leeyahay mareexaan baa haya annaku adinkuna baraad qabanaysaan kan ku xiga baruu qabanaya war mareexaan iyo daarood iyo hawiyow kursiga haddii alla kuu sama ogol yahay u sheega dani dadka xargaha ku haya ka soo furto maanta kursiga annaka hayna adina baraad qabanaysaan hanagu dhibaataynina hana naga harina aan isku jid iyo isku dhabaqaadno daarood Ismaaciil haddaad tihiin waxaan leeyahay reer awowgay hawiye aniga awowgay waa reer awowgay waa hawiye waa jeclaha reer awowgay waa jeclaha reer awowow waxaa idin dhex degan niman madax ah idin dhex degan oo dawladda soo qabtay annaku runtii dawladda nimanka soo qabtay waxba ka sheegan mayna mana ana arag waxana nooma tarin waxana nooma gelin waxana nooma qaban mana anaan arag mana ka eedsanayna maanta oo ma daba taagnin laakiin waxaan leeyahay dawladdii maanta iftiin baa u baxay farmaajo intuu noqday madaxweynaha intuu noqday magacyo aan baan maqla anugu waligay magacyo adinkuna adnaan maqal dawladdanada ciidan kuma anaan faani jirin maanta dawlad ciidan noogu hormaan karta labaanku intii farmaajo yimid oo madaxweynaha noqday ciidamada waad maqasheen haramacad iyo gorgor iyo libaax iyo warwariin ma maqasheen war yaa Soomaali oo maqlay waligay anigu ma maqal dhagahaygana ma marin waxaasna waa ciidan Soomaaliyeed cirka kama soo dhicin dhulka kama soo daadan waxa maantana dad dawlad noo muhan kartaa ma jirto wataas Kenya
على كل على واتكون من السكينيو كيا واتاس أولنا مركي هراء فرمات الدولة ترينا كيا واتي جدها نسارنا يسون كعريني وهذا يلسان دولة الآن متى افتين بانوب بحيه افتين بانوب بحيه دي اللي كوس نقم بايلني هدي اللي كلا دمبين بايلني كالورين بايلني وحنو قلا يلني وان اسبرني دولة دا يلا علني هلا دورتو دولة هلا دورتو وليه waxaan leeyahay dawladda hal doorto ciidanka dhexdegan dadka odayaasha oo madaxda ah oo joogaaga ah oo awal madaxda soo noqdayo anigu hadda waxaan leeyahay anigoo gabara ilma adeerayaalow awowayaalow adeerayaalow dadka raaca oo bulshada hadhuminina waa taqaanaan kala haadkii kala hoogii ka dhacay waagi dawladdu gadoontay waa taqaanaan wixii idinku dhacay waa taqaanaan xabar wixii ku dhacay waa taqaanaan annaka iyo Soomaaliya wixii ku dhacay waa taqaanaan xabar baan naga darnay waxaad yeelaysaan dawladda ha celcelinine waxa rabtaan inta u sheegataan haddaad dhaqaalataan u sheegta haddaad madax rabtaan u sheegta meesha aad iska fadhidaan oo maanta madawga go'aan buu gaara maanta maxaa ka quseeyay ayaka Soomaaliland maxaa ka quseeyay ayaka Soomaaliland bay Cabdullaahi Xaashi saas la yeelo garbaari saas la yeelo war waxaan adinka dantiina ahayn oo shaqadiina ahayn oo sharaftiina ku wareeganine niman dawlad noqday oo wax soo maray oo siyaasiyiin wixii dantiina kaliya ka hadla dantiina kaliya ka hadla sumaanta sudaxamar ha ka bilaabina hoog iyo ba iyo kalluud ha ka bilaabina inta ciidan maanta bees joogta qaar baa ciidan ba xagga la keena qaar baa ciidan dusheeda xagga a jooga qaar baa la ya dagaalamahay war waxaas dan ku jirta laba arkee danta bulshada ha la qabto danta rayadka ha la qabto danta Soomaaliyeed ha la qabto danta wixii dhibka ha laga daayo dawladnimada ha la ogolaado doorashadu ha dhacdo adinka waliba hada day dawladnimada dhacdo annaku duur iyo gobolaan jirnaa nimanka dhacaankeedii hore u dhadhamiyay oo dhismaheedii dhadhamiyay oo ciidankeedii dhadhamiyay waa adinka waxaa tiraan garbaharey maxaa